agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Maxamed Abideeq oo la hadlay qaybo kamid ah warfidiyeenka ayaa waxa uu ka warramay go'aamo wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay dul dhigtay shirkadaha keena dalka shidaalka waxaana uu ugu horeyn isdul taagay isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyay wareegto hore wasiirka wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Sacad Saajin uu soo saaray oo loo kala diray shirkadaha shidaalka keena dalka fariintaas waxay daaran tahay wasiirka wasaaraddu wuxuu wareegto u qoray dhammaan shirkadaha soo dejiya shidaalka wareegtada soo daaranayd shirkadaha shidaalku markay doonayaan inay shidaal soo dejistaan inay wasaaradda la soo socodsiiyaan warqadna soo qoraan markay wasaaraddu warqadda hesho wasaaraddu waxay qabataa laba qodob labada qodob koow waxay hubisaa bal in ay meel banaan haamihii jiraan amba space jiro qodobka labaad ay hubisaa waxa weeye maadaama shirkado badan soo dejiyaan shidaalkii sidii ay u sameyn lahayd cadaalad uguna dhexna u ahaan lahayd wasaaraddu hadba ciddii markaa xaqa u leh sidii loogu shubi lahaa ay markaa u eegto sidoo kalena dee maadaama ay wasaaraddu u qaabilsan tahay qaranka ganacsiga in shidaalka la keenaya yahay shidaalkii ku haboonaa ee dalku isticmaal lahaayeen inay hubiso geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay qaar ka mid ah shirkadaha shidaalka soo dejiya oo jabiyay shuruucda shidaal keenista waxaana uu carabka ku adkeeyay in shirkadahaasi la ganaaxi doono halka sidoo kalena agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlay cabashooyin aan meel mar ahayn oo qaar ka mid ah shirkadahaasi ay warbaahinta mariyeen muddooyinkii dambe waxa dhacay in shirkado badan qayb ka mid ah shirkadahaasi iska dhantiraan iyagoo on wareegtada wasiirka ama wasaaraddu soo qortay markaa aan tixgelinayn shidaal bay iska soo rarayaan waxay keenayaan badda markay keenaan waxay odhanayaan hala noogu shubo haamihii iyagoo markaa jebinaya shuruucdii markaa ay wasaaraddu u dejisay iyo wada shaqayntii wanaagsanayd taasina waxay keentaa buuq iyo culays marka wasaaradda ku yimaada shidaal baa halka noo yaala lacag baa nagu socota wax noocaas qaarkoodna waxay sameeyaanba inay media soo istaagaan oo yiraahdaan ujeedada laga leeyahay shirkadaha la cadaadinaya shirkadaha qaarkood taas bay yiraahdaan marka halka waxaan ka cadeynaynaa in wasaaraddu tahay dhex qarankana ay u xil saaran tahay sidii xor iyo xalaal ah ay dadweynaha Soomaaliland ay u ganacsan lahaayeen hase ahaatee wax kastaaba waxay leeyihiin kala dambeyn iyo shuruuc bay leeyihiin iyadoo warqadda wareegtada wasiirku qoray ee cadeynayso in lagu dhaqmo ayaa horta fiicnayd hase ahaatee waxa ugu kalifay maanta inaan u diro fariintan markay soo noqnoqotay rag badanna ka waantoomi waayeen marka waxaan halkan doonayaa inaan qolooyinka markaa diidaya amba ka gowsadaygaya inay raacaan wareegtada wasiirka uu soo saaray aanu sheeganaa in laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan haddii ay keenaan amba ay sharciga jabiyaan waxa la ganaaxi doonaa shidaalka ay sidaan 10%. waxaa jira rag badan ba shirkado badan oo waxa laga yaabaa in shidaalka ku jira haamaha iyagu ay leeyihiin handana doonaya in loogu celceliyo iyaga taasina wasaaraddu ka yeelmayso wasaaraddu waxay raacaysaa cadaaladda iyo sidii u aragta xaqa iyo sidii mar walba space-ka ka banaan haamaha ay u aragtay ugu haboon iyadoo eegaysa ayay raacaysaa iyo nidaamka ay markaa soo dejisay sidaa daraadeed waxa kaloo la leeyahay shirkada shidaalo kale oo u socdo maxay Puntland iyo Muqdisho ayaa si degdeg marka qaarkood la soo looxiyaa markaas badal soo joojiya taas saahanda la oranaya hal noogu shuba haamihii taas waxay baal marasa wareegtadii wasiirka iyo nidaamkii inoo yaalay ee wada shaqeyneed